السلام عليكم. بصفة عن إيديجيسو هايجا دقدقين waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamijkan 4.5 ka oo mar labaad noo soo celiyay waxaan rabaa inaan maanta eedeeyo 0.5 kan eedeynaya 0.5 ka uma doodiyo maanta waxaan ku eedeynayaa Soomaaliya Muqdisho markii la tago guryaha ugu quruxda badan waa idinka laakiin waxaad ka kireyseen dadkii 0.5 keeda ku tilmaamay waxaan idinka codsanayaa walaalayaal haddaydan ka saari karin kiridina qaali uga dhiga haddii kiridina qaali aad uga dhigtaan oo ku dilo maxaad kiridina qaali uga dhigteen wallaahi billaahi tala xaqina u dagaalteen waxaan u soo gudbayaa jubooyinka iyo shabeellooyinka beeraha ugu qaalisan oo Soomaaliya wax looga keeno waxa laga keenaa jubooyinka waxaan idin sheegayaa idinkana qaali ka dhiga qudaartiina waan u baahanahay qudaartiina waana jecelnahay qudaartiina qaali ka dhiga waayda anaguba idimeenan garan in aad nala simantiin madaxdeena ka hadlayay tan kale dadka la yeesho oo iyagana la dhaho birahay tumaan birihiina qaali ka dhiga mekaanikiin baatiina mekaanikiina gaariga markaas sameynaysa si fiican gaariga ha u sameynina waxaan u soo tagiyaa jareerweynta dadka dhahan waxaan idin sheegayaa jareerweyn guryaha Soomaaliya ugu quruxda badan idinka dhisa si fiican ha u dhisinina si maalinba gurigii u dumo la idinkuna yeero intaasoo dhan waxaan uga guuleeyahay walaal macaan nin ku xaqiiray walaal macaan nin xaqaagii dhinac kale aadiyay walaal macaan ha u naxariisan wallaahi oo billaahi oo tallaahi maalintii yawmal qiyaamo xaq baad ku leedihiin waxaad samayseen xaq baad ku leedihiin walaal macaan nin ku xaqiiray ku yasay haaf ka dhigay walaal ha u naxariisan gurihiina qaali ka dhiga waxaan kaloo idin sheegayaa ajax baan la hadlayaa jeekay baan la hadlayaa dadka shactireeya baan la hadlayaa oo la yasa hadana oo ay Soomaalidu yeesto waxba u shactireeyna waxba ka qoslinina waayde way idinku raaxaystaan hal una weydiyaysan dadka filmaanta soo duuba fan broch iyo alfagihi iyo dhammaan ismooqfosh waxaan u sheegayaa dadka idin yasa waa dadka aad filmaanta u soo duubtaan walaal kacdoon sameeya kacdoon qaran sameeya walaal macaan ka dhiidhiye waxaan la idinku wado walaal mid baan idin sheegayaa Soomaaliya midaad ku guulaysan kartaan baan idin sheegay caalamka dawlad markii awoodooda laga yaabo loona arko dawladdaas inay dawladaha kala xaqirto cunaqabateen baa la saaraa cunaqabateen saara Soomaalida xalwada macaanood karisaan joojiya waxaad joojinaysaa walaal macaan aad noo samaysaan joojiya ilaa aan idinka garano xaqaad nagu lahaydeen wallaahi oo billaahi oo tallaahi qofka walaalkiin aan ka dhiidin khaladka laga garan uu ku qanacsan yahay 0.5 dadka laga dhigayo shacabka Soomaaliyeed way ku qanacsan in 0.5 leedin ka dhigo waxaan u sheegayaa shacabka 0.5 ka lagu tilmaamay shacab weynaha reer Puntland ka qaleey xoogaa ha ku badinina cunaqabateenta inta ay mudaharaadka ku jiraan maalintii mudaharaadka joojiyana cunaqabateenta u kordhiya laakiin inta hadda ka doodayaan 0.5 ka waxba cunaqabateenina waxaan kaloo idin sheegayaa walaalahay يا أيها الناس قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ولا القبيلكم وإن لسكو كرتم معها ولا المعان إن لسكو حميو 0.5 أوكي قبل شرفت لها قرح ضبطنا بنادري جاها baan 0.5 ku tilmaamay iyagu markii hore uu Ilaahay nus ka dhigay oo nus ahaa baan Soomaalidii waxa la nimid diin kale oo nus kale ka sii dhignay gabar ba maalin loo waxay ugu tiri mursi wala aniga aan markii hore gabar ahaa iyo nus ahaa baa Soomaalidii nus kale iga sii dhigeen haddana marka walaal ziira miyaan ka ahay adduunka bay ugu tiri wallahi waan ka qiirooday nin kale ajaaniba ayaa wax igu yiri waxaan ku weydiinayaa ma foorka tahay mise 0.5 ka waa nin ajaaniba ka war walaal sumcadiid waa naga xumaatay adduunkii waa naga xumaaday walaal ka dhiidi walaalka caawi walaalka ku taageer in uu walaal macaan uusan ka hoosina kula simeeyaa walaal madaxweyne noqon kara ra'iisul wasaare noqon kara amiin caamir bad xaqiirtay amiin caamir bad dhahdaan magaalo Soomaaliya kamid ma iman kartay walaal amiin caamir waxaan ogahay afarta Soomaalida ugu waaweyn haduu kamid ahaan lahaa wallaahi billaahi talaa saxabada u tumilaayeen waxaan idinka codsanayaa walaal macaan ظلمي بان ugu soo socday ka hortaga suu Ilaahay maalintii yawmal qiyaamo marxaati aad dhaad Ilaahay Allahumma hal balagtu waxaan ka codsanayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka dhiibiso oo laga doodo wallahi wax dhiidka iga keenay waa xanaaq wallahi waxaan ka xanaaqsanay waxaas maalintii yawmal qiyaamana waa la wada tagiyaa ee ka dhiidha hadda intaan qiyaamaha la wada aadin walaal waxaan ka codsanayaa gaarsii walaalada
gaarsii qof walbo Soomaaliya waa codsi ka socda walaalka Mursi waan idin salaamayaa walaal dhiirigelintiina ku mahadsantiin ilaahay khayr ha idin siiyo insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh